qolofta yaanyada iyo qolofta tufaaxa waxaa ka buuxa faa'iidooyin iyo fitamiino badan oo jirka u baahan yahay waxaana ay ka difaacdaa xanuuno badan iyadoo waliba jirka ay ka badbaadiso halista xanuunada wadnaha waxaa intaas oo dhan sabab u ah maadada cajiibka ah ee ku jirta yaanyada taas oo ah maado loo yaqaano lycopene kama shaqeyso oo kaliya in maadadani ay ka dhigto yaanyada midabkeeda casaanka ah balse waxaa kaloo ay ku biirisaa yaanyada fitamiino badan oo jirka siiya faa'iidooyin badan oo caafimaad maadada lycopene ayaa waxa ay ka shaqeysaa ka hortagga dhaawacyada ku yimaada unugyada jirka isla markaana waxa ay ilaalisaa unugyada jirka maadadan ayaa sidoo kale gargaar ka geysata daaweynta kolestaroolka xun ee loo yaqaano cholesterol LDL waxaana ay hoos u dhigtaa heerka kolestaroolkan ee dhiigga ku jira iyadoo sidoo kale caawisa ka hortagga cudurka prostate cancer maadadan lycopene waxaa kaloo ay ku jirtaa qaraha iyo labada nooc ee qudaarta sida tan tooska ah loo cuno iyo tan la karsado tusaale ahaan waxa ay ku jirtaa karootada iyo basbaaska gaduudan laakiin yaanyada ayaa ah qudaarta kaliya ee asal ahaan maadadan lycopene ay qani ku tahay haddaba yaanyada ayaa waxay Soomaaliya ka bixi kartaa meel walba waxaasi hadda ugu badan oo lagu beeraa webiga jiinkooda magaalada Saako waxaa qooyo webiga Juba waxaana ay yaanyadu ka tahay raqiis yaanyada ayaa la cuni karaa iyadoo la shiilo la dubo ama maraq laga sameeyo iyadoo aan wax walwal ah laga qabin in la seego ama ay baabaado maadada lycopene ee ku jirta yaanyada iyadoo maadadani ay faa'iidadeeda ku jirayso kadib xitaa haddii la shiilo ama la dubo yaanyadu gabi ahaanteedaba waxa ay faa'iido u tahay jirka arintan kuma koobno oo kaliya qolofteeda ee waxaan gabi ahaanba ku jiran calories oo ah tamarta cuntada dhaliso oo badankeedu waxa ay keentaa buurnida ama cayilka waxaana ay ka samaysan tahay yaanyada boqolkiiba 90 biyo waxaa jira daraasado dhowr ah oo muujinaya in yaanyadu ay horumariso caafimaadka lafaha yaanyada ayaa sidoo kale waxa ay hodan ku tahay fitamiin C-ga calciumka iyo fiberka oo ah maado fududeysa habka dheefshiidka